عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقالي بمير كستاك جوجتان كسو دوادا جنانك يوتيوب كيغا عصوب آسيا بيحا وفشيال وحاو مرتيغو ولا لدي دقاليغا قرب كيغا ميديكو حفليغا ولا شيء مناقينيو كسو دواو وندوها ولا ما شاء الله أنا كسو دينا عيغا ميديكو وحفليغا ولا لكي عمر أشرف هي وندوها ولا شيء محمد ألبان كسو دواو ديغانا منك كسو دواو ما شاء الله أدي بونا سنتين لبدي لبع وحنا أصحابتي مير كستاك جوجتان تاوشوا عن هرطو سبسكرايب كنا هيجي لنا لايك كومنتيكا شيركا قبليلكنا فرتا برنامج كان عاويدين ودنا ندين دادهنينا waxa weeyaan maxaa keenay furniinka because of waxaan hadda ognahay in wadankeena meel kasto joogno ay ku soo batay furniin marka la yiraahdo maxaa keena sababta waxaan weydiinayaa wiilkay gabadha garabka haya fadhiya ku soo dhawoobna furniinka maxaa keena والله هرتا بسم الله الرحمن الرحيم فرنينك waxaa keena dhalinyarta hadda joogta oo aan horta koow guurka ka fiirsanin marka ugu horeysa ku arkayo ku caashaqay way wax kasta wuxuu u baahan yahay dadaal isfahan labada qof markay isfahmaan ay gurina dhaqan karaan insha Allah laakiin hadii ay yiraahdaan ku arkayo ku caashaqay labada qof inta baacadoodii ay isfahansaneen ama dhaqankoodii fahansaneen ay guri isku tagaya sax khilaafka u horeeya halkaas uu ka dhacaa ayna oran karaa guurku furninku saas u batay أنا جاي لطها ما شاء الله أنت ما صرت العانتو عندنا runtii walaashay soo sheegtay waaye waxyaabo badan ay sababa inkastoo aan halkan ugu soo koobi karin sax sida sheegtay walaashay ku arkin ku caashaq waa ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah gurka qasabka Soomaalidan waxaan naqaanaa gabar iyo wiil aan isla oo kaleeto aan isku daray waalidiinta iska gacmanayo oo isku qasbaya حتى قرني قالوا نشوف نعيد اسمه خصبته وجرتها ما يودع لين كأوبا بهذا لكن هذا واحد من سنة أنا ما تقانا إن أنا وجري وحلا اسمه خصب هذا وحي قف قلبه وكل يرالك هي مصمعي وجرتها لكن سيدي هرو يعني ها لك بتري صح وجي كلو عصب أي الله يعلي عادي لكن قصب في وجهها صح صراحة حلا سمينيا اللي بدنا ويلبا إن السيارة دوني حلي أو كم نكسب سامو هاي أروس أروح لي حلي واحد عشاء بقص من الشيء صح واحد عشاء كل إني عطر كل جتو فرحة حبتي سقط كشو بشيء كان يسار بحي بالو سميني ما شاء الله وعروس خرش يسار يس تذكر مرة يوم ملايين إنه جور كان لا بقول فوز كعلاتي لكن هو خصب أو طبعا صح تحسين واحد كنيسة فرين دقدقة حيالي لبدن كفود اسمه فهميان وأدكتين استبعد كنا هل يلاه مويه يقفوا إلهي توسي أو إلهي كتوسي وناك مويه أنت بدن اسمه فهمان ما شاء الله وحكى له سببا حرير بين نقول السن حرير بين ها هاي markii runtii la tagay dhaqankii la tagay marka xiriirka been Umarka yirey oo ku yara dul istaago xiriirka beenta gabadha keenaysa mise wiilka kul aanu gabdhaha wata wallahi wado labada dhanba ana kala xabara ka saar maaye ana xabara meeshu ka yimaadaba xiriir bayna sax wala isku jiraya ana ku jecel ana ka taray ama gabadha ka yimaada ama wiilka ka yimaada ha ما كل قف بكيمان يا قف كلا وضع دبي عدي على خلنا ها قف بكيمان يا وصح مركا قف لقينا أو قول مقصي وحنا أو قباني مركا حلو جوري مكينة تبو قف كان وحو كسر جاي طبيعتي قدمتك كقبرتي يتبعتي كذا على سفر هي different ولا حيسا وحي بلابان يسو سكودا عادي سكودا عم تقول بلابان ماشي سبوق بوق ده بدل نحس بدل يفرق ما شاء الله waxyaabaha kala furinka sabab waxa kamid ah oo walba gabartu ay u guursanay saaxiibadii diriskii la aroosay ani maxay gareen iga bareejay himlaay guursaday ana guursaday laakiin waxa waaye laakiin kullu marka lagu leeyahay waa mustaqbal dad noloshaadu ku xiran yahay laakiin lagama fiirsanayo macnaha waa guur waa sax sharciyan waa sax waa wax loo baahan yahay la badiyo guurka reerka macnaha sharaxaad islaamka la farayso صح laakiin uma dhisanayso ida inay ku nagaato ama ku qabowdo ama ku nolol fiican ka yeeshay xiblaayad aroostay ana miya iga fiican tahay iyo hebel aroostay
hebel iga fiican iga bareejeen ayaan kadibna waxaa dhacaysa inay tiraahdo iskaabulnimada garobnimada iskaabulnimada ay fiicnay صح kan waaba cadeydina subaxii soo kaca wax sameeya ninkan oo siraatan naana soo horiyaa guri ku sugayso iska soo wareegi lahayd kuwii heblaay heblaay soo sheekaysan hawa bas xayirtaba labadii ilaahay isku hadeeyay mooyaane yes ما شاء الله waxaan rajaynaynaa leenahay horta furniin marka lagu hadda in kooba lagu faanaa basaan arkay gabdho badan oo ku faanaya qaar xaflada dhiganayna waa farxay oo Yeah. la soo furay oo la soo furay waan arkay dad badan oo xaflada dhiganaya xafladii furitaankayga kule waxaas niyo dhaqanadii hore awal dhaqan uma lahaan jirin laakiin hadda waa wax muddooyinka badan inagu soo badanaya ma aqaan sababtuna waxay tahay maxaa sababa talo wallahi kule waa mas-uuliyad daro taasa u koowa mas-uuliyaddeeradan raggaas kale sax may ragoo kaliya lama saari karo dumarka dumarkana way ku jira dumarkana qaar badan ku jira rag waxaad arkaysaa mas-uuliyad saaran tahay oo haddana dhaqan gabadhii iyo nolol iyo wanaag u baahan haddana gabadhaa ka xumaatay gabadhii ka xaqiiqsanahay anuu ismailkii gabdho way anugu xumaadaan ma dhahayo raggaa wanaagsan ama dumaraa wanaagsan tii wixii anu waxaan leeyahay ragga waa laga wanaagsan dumarka ka wanaagsan dumaroo ragga ilaaliya waa iga talo horta ma in gabdhaha la ilaaliyo kulley dumar ragga way ka jilicsayin dumarku way ka macaan yihiin inay inamada soomaaliyeed hablaha soomaaliyeed ilaaliyaan waajib baa ka saaran taa laftirkeeda inaa inamadoo kaliyana cadaadina maaha waa inaan hablahana dhahna iyagana inamadiini weeyaan ilaahay wuxuu idinka dhigay muxrimkiini waa inay gabadh walba soojkeeda ilaalisaa calafkuna waa halkiisa dad baa jira fiican oo gurigoodu aada u dhisayo haddana calaf kala kaxeeyo marka waxaan leeyahay hala is ilaaliyo xumaanta laga nasahaado rag iyo dumarba beertaa laga baxo ayaa lagu jira inamow gabdhaha been ha u sheegina gabdhowna idinkuna inamadeena loo ilaaliya oo been ha u sheegina horta shayga beenta la yidhaahdo waa shayga aan laysku waafaqin kow nolosha waxaa kamid a dabeecadda oo dabeecaddii maanta dibadda aan kaaga bartay gudaha aan hadhow ka waayo isbedelaa imanaya waa sababaha badan ee waxaasi ku dhacaa sababaha badan ee waxa weeyaan oo dadku ay inta badan ay isku afgaran waayaan marka waxaan leenahay dabeecadda dibadda aad ku lahayd gudahana waa inaad ku lahaataa labadiinaba saa isku barateen waa inaad ku haataan masax horta waxaa tiri ragga mogta ragga aad saarta adiga runtii ragga anugu waan ku kacsanahay runta waxaa fiican ma jirtaa rag boqolaal waxaa jiro la ogyahay ma la yaqaan wanaagsanoo dee u baahan inay reerkii quruxsadaan oo wanaajiyaan oo wax walba farxad iyo nolol ay siiyaan dee soomaalida hore waxay u tiri doora qorqabay biyo kuma cabto صح wanaagaad adiga la damacsan tahay haddaysan qof kale aan ujeedin ha kuma qasbi kartid kuma qasbi kartid aad iyo aad marka ragga haddii raggan wanaagsan way jiraan rag xunna way jiraan صح dumar wanaagsan oo maasha Allah kasreen way jiraan dumar xunna way jiraan labada way inay wanaagsan oo dhici kartaa laakiin fargelin ay kaga timaado dhinaca faaliga labada dhinac intaas waa different taas waa different sababaas waa jirtaa aw jira waad arkaysaa waalid ama hooyo ha noqoto ama walaal ha noqdo dee gurigii ama hablo ha noqoto dee saameyn ku leh reer dhisan farxad leh dhehaysa gabadhii aa laga soo mara ama wiilkii la soo mara hadba qofka jiracsan ayaa dhinaciisa la soo maray aad iyo aad laakiin qofka haddii maanta u fahansan yahay wixii saxa iyo wixii qalada waxba kama xumaanay adigoo qofkaagan wanaajinayo wada hadal xun dhihin aan noloshaadii mustaqbalkaagan aad ilaashan kartaa aad iyo tusaale maanta waxaa lagu sheegay sooma waa lagu yimid ama waalid ama walaal ha aado ama qaraab ha aado ama asxaab ha aado wuxuu ku yidhi xaaska isaaniisaan waxaana jiro saan waa amaro saan ha okay waa mahadsan tahay waa fikir fiican waan fiirin barto uta isagana waa qanacsan yahay adina balaayo ma qaad sii tixraacsan mar walba waxaa muhiima iimaanka ilaahay iimaanka nagu sugo iimaanka dhamaantan nagu sugo kalsooniduna waa muhiim ruuxa maanta inaad mustaqbalka dhigato iyo xaaskaaga tahay ku kalsoono kalsoonidaas abaan aqooninba dadku intooda badan ha xumaata ha samaato ku kalsoono aad iyo aad adna waxba kaama xumaanay waxaa laga yaabaa mar kalsoonida aad siisay in iyaduna wanaag kusoo dhacdo bas tiraado qofkan uu ku aaminay kalsoonida intaa leegu ku siiyey adna waa inaad wanaajisaa sax waa laga yaabaa haddii aad weysana ilaahay wax ka khayr badan kugu bedelaa markii ninkii samraa sidiisu kule baruur baa baruuyo qormisaa la yidhaahdaa anigu ragga caawa ku kacsanahay because of waxaan arkay dad badan waxaan arkay oon inta badan aan maqla dhagahayguna aad uga buuxsamay
dumar badan oo ka cabanaya ragga taas ka waxay uga cabanayaan dhaqaale xumo mid biilkii ku siciya horta may dhibaatadaas iska jirtaa horta dhibaatadaas way jirtaa horta adduunka biilkii imika mid kale uu iskaga soo dhaadhicinayaayo oo tu doono ku casho geynaya gabadhiisiina caruurtiisa iyo gabadhiisa way ka qatan yihiin may way dhacdaa taas in badan way dhacdaa dhacdooyinkaas in badan waan arkay in badan waa igu soo noqnoqdaan inta badan waa inta la kulmo waa mas-uuliyad darrada lagu sheegayo ayay daba socotaa laakiin dumarka qaarkood biilka iyagoo la siinayo isugu filneeno ayuu tii wax baasay ku jiraan waqti ayuutada waxay ugu jirtaa ayuutada waxay ugu jirtaa cumaran kaa dhex kala sawray ayuuta waxaa la dhahdaa hagbad hagbada ayuutada la dhahdaa ayuutada walaalo waxay ugu jirtaa gabadhii ayuutadaasba wax badan bay dabashaa mogti gabadhii mas-uulaad ka tahay iyadoo intaa leego weyn oo sharaf iyo cisil iyo wanaag labad gurigoodii kasoo kaxaysatay guri baad soo dhex fadhiisisay waxaad ku tiri ha bixin waxaad ku tiri ha labisan waxaad ku tiri meel ha marin halkaa dhex fadhi biil yaroo bilsaqajaana ayaad u tuuraysaa biilka ma waxbay kuugu karisaa ma nafteeday wax ka siisaa mise dadkii ka dambeeya waalidkeed ha ahaada ama asxaab ha ahaadee ayay la qaybsataa wallahi horta taasi ya taasi horta warka waa kala qaadanya warka soomaalida waxaa dhahnaa qaaran ama wax tolka wallahi gabadha ayuutada gasho ugu wanaagsan because waxyaaba badan bay ku dabaysaa waxaa jirto ayuuto gasha meelay ka martay cidna aan way siin jiraan haa waalidna aan siin walaalna aan siin halkay geynaya meelay ku baxday iyo waxay ku qabataan de waa inay gurigun haddaba kusoo celisaa meel kale wax la geynaya ma jirto dumarka ha afrin walaalo telefoon isku sheegay qofka ayuutada inoo taagnaa ayuutada naftirka qofka haddii uu wax aruurinayo wax ku wanaajinayo ama waalid ama walaal ha noqoto ku wanaajinayo diidaysaa ama gurigiisa isagoo qofka haddaa maanta ogaayad qofka haddii qof wanaajinayo waxay ga wanaajinayso ay heebteeda daboolayso waxaan dhihi karaa qof lagu faani kara oo laisku halayn karo kolley waa sida loo kala naagimo fiican yahay waa sida loo kala maskaxyi karasho badan yahay way jiraan dad badan oo intay lacag fiican qaata oon haddana meel uu ka muuqda aanu jirin waxaa jirta dad in yar oo biila la siiyo haddana maasha allah gurigooda ka qurux badan yahay ninkeeda ka qurux badan yahay carruurteeda ka qurux badan tahay nafteedu ay ka qurux badan tahay wixii kale ee soo raax family ama asxaabna ay wax uga heli karto waxay ka barbari dhahdaa oo yar saaxiibana iga sheekeeyay iyadoo guri la deganaa laba reera degan labada wiil waa adiga family qaraabo dhow sax xogaa waa la isfahmi waay mid kamid ah wuxuu yidhi xaaskiisa wuxuu yidhi walaalay anigu wuxuu yidhi toota ma raba xaaskayga tahay walaashay baa tahay maxaad adiga biil ku qanacsantoo ku siiya waxba muu dhalin waa iska socseeb camale waa waxay tiri aniga ahaa maalinkii $8 nii soo celiso wuxuu yidhi raashinkii wuxushii saliidii wax kasta way ku yaalin $8 horta nin bil xisaabiyo qorqoday maya wax kasta way ku yaalin waa kaa u dhahay qorqoday ma taqaanaa $8 ya intee geensa ha $8 ma taha ha $8 baa baahna okay tii hal waa la wada fadhiya tii kale waxaa isku ku yidhi meeqa kugu filan caruur bay haysaa waxay tiri wuxuu ilaahay kuu dhiibo dhisi waa garasho la isdheer yahay masha allah ha badnaadaan maalinkaad soo weysan alxamdulillah maalinkaad soo heshan alxamdulillah ma wuxuu yidhi adi ahaan hadda ilmahaadi adiga maxaan kusii lahaa waxay tiri waa dhibniba waxaad ii awoodo isi hadday yarihiin anaa isku filnay iimaankeeda qanjajo marka waxaa meesha kaaga cad inuu farka jiro aad ya marka ilaahay waxaan leeyahay reerkaa noo wanaajiyo dhammaan ummadda muslimiinta inta sii kala jeedana la isku soo jeediyo inta sii kala jeedana alla isku soo jeediyo laakiin waxaan leeyahay nolosha ama mustaqbalku waa god mugdi oo gacanta aad gelinayso waa nasiib yaa nasiibka naagaj ama bas maagaas oo qadayn doona madama baad ka heli doontaa waa nasiib كل هذا وناكسنت قف وناكسن مواسم والله دد وناكسن ودبن باجرا أدو قلبي واحد كان نقطع دد وناكسن ودبن باجرا أسمعت إلا وضوء كل جيجي ما كان نقطع سوق قبلنا شكاية هاي أنتي لبتها كسارو أنت سكوب فرح سنة فرحت ذا وسياديو وبالله التوفيق هي أدونا والله أنا أقول سنة سنة ولا شيء ستري مبانا يعني حلا يعني حجرت كسولة صح
mar walba haddiisan kalsooni jirin ama mustaqbalka guurka aad dhisanaysa uusan kaa ahayn niyo mid niya oo dhab ah aad u baahan tahay inaad beri ku ayado ku degto iska daa naftaada been ha u sheegin naftaadana been ha u sheegin nafta walaalka ama walaashaana been ha u sheegin kharash gareyn nooga qarashna ha iska bixin maxaa furniinka badan markay naga joojinayaan aan dadka u sheegnaa inaynu ku caawino caawaba fikradtiina ka dhiibta kow in daacad la noqdo kalsooni buuxda la helo ku arkaya ku caashaqa la iska dhaafo si fiican beenayaan la isku sheegay dabeecadda la isbarto labadii qof oo isla maanta horta marka dhabka hadalo labada qof markay banaanka la joogaan isma baran karaan waxaa jirta dadka dabeecado badan oo u qarsoon markaan dibadda kala joogno inteeda fiican buu qofku arkaya ana intiisa fiican baan arkaya marka nolosha dhabta loo dhaadhaqay guriga la tagee meel la wada wax la wada cunaa la isfahmaya marka waxaan leeyahay qofka markaad dibadda joogtay aad intiisa fiican ka hadashay aad ka heshay intiisa xun markaad aragtid markiiba ha ka boodino u dabool sax inta wanaagsan inta xub dabool inta wanaagsan inta xun ku dabool isaga waani hadduu inanku gabadho waani guurku waa sheer la galo maa wax lagu inta la galo dee lagu ciyaaro qof keliya kasoo jooga labada dhinacba in laga geejiyaa qurux badan marka waxaa labada dhinac waa ka geejiya insha allah beentana hay nagana sahaanaato haddii beenta la iska dhaafo waxa kalena way hagaagayaan anigu waa soo gabagabeyna walaashii aan ku raaxsanahay runtii anu waxaan dhihi karaa waan ku arkay waan ku xashaqay hal iska daa beenta ragga dumarka u sheegayna daa naftaada waxaysan jecleen ha kuu qasbeen maanta haddaan ku arko waan ku dhaho waan ku jecelahay waan ka ahay ina beenta nafteeda waan qasbaya beentuna sideeda waa xaaraan balanka buuxda dadkan hadda waxaan ku arkay markay isjecel iskukaasana halguliya balan waysaan haddaan ku yeelo waysaan waxaadan samayn karin habasqaadin waxaadan fali doonin waan falaadhay waxaanad fulinanay falaadhi way ku tasheegaan marka waxaan leeyahay daawadaasheena qiimaha iqaayaha badan meel walba aad joogtaan aad naga daawanaysaan Asiya Biixi Official mar walba waxaan leeyahay subscribe ku dadaala like badiya share xagino commentiga wixii barnaamijkan iyo xabta yeesheen iyo qaabka ugu muhiimne commentiga nooga soo qora ama naga daalina insha Allah ana leeyahay dumar oo idin kale wataa raggan iska dhigay isoo raac ragga baad ana dhexaa raac